soco maanta casharkii ugu dambeeyey. Bismillaahi raxmaan raxiim. Maalin wanaagsan. Maanta waa maalin Arbaca. Waxa aan mar kasta isku dayaa in aan dadkeena wax yar ciddi yar ku soo kordhiyo, waayo adduunka gabigiisu waa ciddi wax weyn. Dadka qaarkood baa doonaya inay maalin iyagoo meel fadhiya, sanad fadhiya, 3 sano fadhiya, 7 sano bum wax kasta adduunka hela. maaha sida adduunku waa ciddi waa sida caruurta markay baranayso socodka oo kale. kacitaanka marka hore talaabo qasadaytaanka saas weeye cilmigu, saas weeye adduunka wax lagu soo kordhiya. waxa laali waxay imika lahaysa dadka baa imika qaar baa iska oranaya alla reer galbeedku diintooda Falastiin baa laga keenay masiixiga. imika masiixi ma marka dawladda hababkooda dawladda Greek iyo Turkiga koonfurta Kuuri ee koonfurta muxuu ahaayay Turkiga iyo Greek ayaa laga keenay waxaan dimuqraasiga la yiraahdo. dimuqraasi waa laba kalmood oo isu tagay, waa dadka xukunka dadka ama xoogga dadka. fartooda waxaa laga keenay Laatiin, xisaabta fartay ku qoran Carabta laga keenay. wax kasta meel baa laga keenay. taasoo kaliya iyagoo kaliya maaha, adduunka oo dhan baa isu baahan. bini'aadanka Ilaahay wuxuu isugu uu kala saaray wax baan anigu aan hayaa aan adigu haynin, iyaguna waxbay hayaan aynaan inagu haynin. marka saas ula soco. hayso dhan imika gaalado cirkay gaadh dayax. ninkii diyaaradda soo saaray Ciraaq buu ahaa, ninkii ugu horeeyay muxuu ahaayay isku dayay inuu meel ka soo Ciraaq buu ahaa. kuwii ka bartay Talyaaniga ahaa Leonardo da Vinci. Turkiga Cismaaniyiinta nimankii la oran jiray 1500 iyo waxaan intaas oo dhan ku sheegayaan layna qalteen. waxa imika doqonta waxay aragtaa waxa jooga, waxa halka la soo maray bini'aadanka adduunku jab uu soo maray. hees baa jirta Soomaaliya aan jecelahay oo waxa Cabdiqaadir Jubba qaada. bini'aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay buurba waxba wuxuu ka sheekeynayaa muhindiska horumarku ka sheekeynaya, heesta ka sheekeynaya. marka maalinba in yar dadka sunnaha halkaa iska dhig. Soomaalideena maxaa halkaa dhigay baan isweydiiyo. dad walaalaa waa dad isku afa waa isku diina badankood dad kale oo af Soomaaliga aan afkooda hooyahayn baa wadankeena la degan. muxuu ahaayay raxweynta oo kale, walaweynta oo kale, muxuu ahaayay dadka jareertay walaaladeen oo kale. laakiin Soomaaliga waa yaqaanin. waxay isu kalifay dadka waxay oranayaan waa jaahilnimo, waa qabyaalad, waa qabiil bay oranayaan. waa qof waxba aan ogeyn maaha. dadkeena ruuxda dhimatay. ruuxdu siyaad barre ka dilay, ruuxdu gumaystuhu ka dilay. siyaad barre ay oranayna wuxuu meesha ku fuulay muxuu ahaayay karti iyo waxa ku saaray meesha gumaystaha. ay oranay ciro karti buu ku fuulay meesha, dadkoo dhan baa doortay. ay oran waa lagu saaray. xasan sheekh sidoo kale, farmaajo sidoo kale, kii ka horreeyay sidoo kale, kii ka sii horreeyay sidoo kale. way socotaa. cabdisharmaake aadan cadde way socotaa. laakiin Ilaahay baa la xisaabtamaya maanta. qaarkood way hooseeyaan. siiraanya sidoo kale. ruuxda dhimatay. dadkana ruuxda markay ka dhimato waxay u baahan yihiin dib loo soo aasaaso, loo bilaabo. dhaqankii Soomaaliyeed wuu baabay, afkii Soomaaliga wuu baabay baynu oran karnaa. waxaasi waa calaamadaha. iskuulka uulada waxaana loogu dhigi jiray, uulada waxaan xasuusta waxaana loogu dhigi jiray dheriga. waxa ka keena kuleylka waa dabka. waa inaad dabka eegto markasta. dabka eeg, ha eegin qiiqa biyaha ka baxaya. isweydii xagee ka yimaado, waxbaad ku baranaysaa markasta waxaad isweydiisaa waxaan lay sheegayo halkay ka soo jeedaa. jirida markasta eeg, geedka eegin, jirida eeg, waxbaad baranaysaa. adduunka xitaa technology waxay ka soo jeedaa. Al-Khawaarizmi rahimallah computerkayga Apple-ka ah ee Mareykanku sameeyeen, iPhone ma haystaan. Samsung-ka waxa oo dhan waxay ku saxeeyaan algorithm. waxa la yiraahdaa algorithm-kana Al-Khawaarizmi baa sameeyay. nin muslim oo Ciraaq ku noolaa iyo Iiraan meesha ima kala ilaahdo ku noolaa 1200 xisaabiyahana oo madaxa ugu duuban iyo khamiis xiran oo cilmiyahana ilaa maanta wixiisi la isticmaalaa. diyaaradaha kacaya wixiisi ku shaqeeyaan.
waayo waxaas dhan waxaan kuugu sheegay inaad dhiirinaato inaad ogaato halkaad ka timi soomaalidu way burburtay soomaalida qabiil muu burburin qabyaaladina may burburin labada qabiilka iyo qabyaalada waa kala laba qabiilku wuu fiican yahay qabyaalada xun labada may burburin gumaysta burburiyey gumaystahana maxay gumaystiguna wuxuu u baahan yahay ruuxda dadka loo dhiso ruuxda hadday qofka ka dhimato qofku wuu socdaa baaritaanada ka mid ah ayaa wuxuu sheegaa qofku dadka maraykanka shaqaalaha ah 20 jir bay ku dhintaan laakiin 60 jir iyo 70 jir 80 jir ayaa lagu aasaa yani waa maqanaha jooga Soomaalidu waxay oran jirtay waxaa laga hadlayaa ruuxda qofka ruuxdiisu dhimatana waxa ma qaban karo wuu iska joogaa ciyaal uu dhalalayaa muxuu shaqo tagayaa wax uu baranaya laakiin wax kale ma ku soo kordhinayo ruuxda inuu baahan soo dhisan deeba hadaba ruuxda lagu dhistaa waxa lagu dhistaa qashinka in la tuuro fikirkii hore ee qaribnaa ee gumaystuhu inoo keenay iskuulka la soo bartay tay xirashadii suul xirashadii ragga oo laga daba carro adigoo gabadha oo diintii islaamka meel la iska dhigo oo lagu faano fusuq qashinkoo lagu rido ayaa ruuxda lagu dhisaa horta wixii hore daadi meel ku shub